Dowladda dalka Ingiriiska ayaa soo saartay la-talin dhinaca socdaalka ah oo ay u jeedinayso muwaadiniinteeda booqanaya qaybo ka mid ah dalkani Kenya. Waxay shacabkeeda uga digtay inay u safraan qaar ka mid ah ismaamullada dalka oo ay ka mid tahay ismaamulka Laikipia sabab la xiriira fal dambiyeed iyo howlgallada socda ee lagu sifeynayo burcadda ee dhibaataysay dadweynaha. Ingiriiska ayaa ku taliyay in laga fiirsado u safridda degmada Nyahururu ee galbeedka Laikipia iyo waqooyiga dowlad deegaankaasi. Dowladda Britain waxay sidoo kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan ismaamulka Turkana iyo sidoo kale xaafadaha Eastleigh iyo Kibera ee ismaamulka Nairobi oo ay ku sheegeen inay ka mid yihiin goobaha ay dambiyada ka dhacaan sida dhaca iyo afduubka. Waxaa sare loo qaaday taxaddarka la siinayo muwaadiniinta Ingiriiska ee u socdaalaya qaar ka mid ah xeebaha iyo deegaanada ku dhow xuduudka Kenya iyo Soomaaliya sababo la xiriira falal argagixisnimo iyo afduub. Dowladda Britain ayaa ku talisay in laga fiirsado dhammaan safarrada aan muhiimka ahayn ee lagu tagayo deegaanada 60 kiiloomitir u jira xuduudda Kenya iyo Soomaaliya oo ay tusaale u soo qaateen bariga Garissa, Mandera, Lamu iyo Tana River. Britain ayaa digniinteeda ku dartay in si weyn loo taxadaro inta lagu guda jiro xilli fasaxeedka gaarka ah ee maalmaha Christmaska iyo dabaaldegga sanadka cusub ee soo galaya. Talo bixinta Ingiriiska waxaa ka mid ah in laga yaabo in la beegsado meelaha ay ku badan yihiin ajaanibta sida baararka, hoteelada, suuqyada waaweyn, xarumaha ganacsiga, goobaha gaadiidka laga raaco, goobaha cibaadada iyo xarumaha dowladda oo ay ku jiraan safaaradaha.